بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان walaalahey daawadayaashayda qiimaha iyo qaayaha badan leh ee aan ka wada socono bartan aan YouTube-ka ku leeyahay ee Shukri Muuse Talent Channel. waxaan idin leeyahay mar kale iyo waa walaashin Shukri Degan oo idin wada barnaamij cusub. asxaabay barnaamijkan cusub waxaan rabaa inaan kaga hadlo anigoo marka ugu horeysa idinkaga mahad celinaya daawashadiina iyo sida aad noola socotaan oo aad bartaan ula socotaan ayaan waxaan rabaa barnaamij kale oo baraarujin ah inaan ka hadlo. barnaamijkaas wuxuu noqonayaa inaan wax ka iraahdo caajiska. waxaa Soomaalidu tiraahdaa wehsi wiil kulama koriso. maxaa loola jeedaa wehsi wiil kulama koriso? waxaa loola jeedaa haddaad tahay qof wehsiilow ah oo mar walba wehsada oo noloshiisu wehsi ku dhisan tahay oo wax walba asagoo awoodo inuu qabsado haddana qalbiga uun ka hadla oo aan ficil ku darin oo wax walba ka wehsada oo si u habacsan ma noqonaysid qof xigxigan. khaasatan hooyo haddaad tahana hooyo fiican, aabba haddaad tahana minis wiil haddaad tahay haddaad gabar tahay ayaan ula jeedaa. mar walba gabar walba waa hooyo sugto, wiil walbaana waa aabba suge. ilaahay nooma diida taas. maxay ahaydtay waxaa la doonayaa qofku inuu noqdo qof wax qabsan kara, awlaadiisana korsan kara. intaas haddaanu noqonin uu yahay qof wehsan, mar walba wehsi dareemaya, mar walba caajis ah, wixii uu qabsan kari ka gaabiyo oon qabsan karin, waxaa Soomaalidu ay ka soo saartay mahmaahyo ay leedahay wehsi wiil kulama koriso. bal u fiirsada, wehsi wiil kulama koriso looma jeedo wiil oo kaliya, loomana jeedo gabar oo kaliya, loomana jeedo dad la dhalay korintood oo kaliya. laakiin maxaa looga jeedaa? waxaa looga jeedaa haddaad tahay qof wehsi badan waxba ma qabsan kartid, waxna kuuma hirgalayaan, hamigaaga aad adduunyada ka lahaydna wuxuu noqonayaa mid habacsan oo dibdhac ku yimiday. ma garata? wehsi wiil kulama koriso. waxaa la rabaa qof walba oo bini aadan inuu xisaabtamo. waxaa jira hadda caam ahaan waxaan tusaale usoo qaadan karaa mujtamaceena Soomaaliyeed. markay hooyo dhasho dhowr gabdhood oo guri ku wada nool ee aanay kaligeed ahayn, gabdhaheedu usoo koreen, ay soo gaareen heer ay iyada saacidi karaan, ay barbar istaagi karaan, hawsha gurigana qaabili karaan, ay qaban karaan, oo hooyaduna ay noqotay marka qof daashay oo rabta cid ka bedesho hawsha guriga. haddii gabdhahaasi mid gabara hadday tahay waaba la qaataba. 3 gabdhood hadday guri isugu timaado iyo wax ka badan, waxaa dhacaysa in aan hawshii ay hooyadood kaligeed qaban jirtay 3dooda ayna qaban karin. maxay ku timday? qof xil isi saarayaan jirin. qof xil isi saaraya ayaan jirin. ruux walba waa wehsanaya. waxaa la rabaa marka qofku inuu wehsida gadaal iska dhigo. qof wehsanaya hore uma socdo. inuu wehsida gadaal iska dhigo, inuu noqdo qof xigxigan waagu markuu u baryo yaa maxay yaa fitaax yaa razaq yaa fitaax ma la dhihi jiray. maaragta waaga fooda ku qaada, hadduu hawl haayo hawshiisa qabsada, hadduu shaqo aadayo shaqadiisa aada, hadduu iskuul aadayo ama jaamacad dhiganayo iskuulkiisa iyo jaamacadiisa taga, hadduu guriga joogo intuu kaco oo exercise yar sameeyo oo quraacdiisa samaysto oo gurigiisa kala turto, first markuu soo kacaba sirritiisa ka bilaabo iyadoo isdhex taalla uuna ka tagin, hadduu shaqo aadayo hadduu guriga joogayaba. yaa waxaa kaloo jira fiiri, gabdhaha markay guri gabdho ku kulmaan waxaa dhacda in hawsha la isku fiirfiirsado. yaa oo waxaa dhacaysa in qofkaani wuxuu qaban karo uu ka seexdo, ka kalena uu sirada blaaya qabanayso ka seexdo, ka kalena sirada blaaya qabanayso ka seexdo.
ama iyagu isku jawraan isku ficlaan gurigii hal hooyo ka shaqayn jirtay wuxuu noqonayaa guri aad u qabtad qof maaragtay aan waxba arkayni inay joogto oo aan waxba laga qabanin oo wasaq ah oo isdhex yaalla oo mar walba aan la samaynin maxaa keenaya wehsida naftaada hoosay u dhigaysaa hore uma wadayso waxaa la rabaa qof walba inuunan ka wehsanin wuxuu maanta qaban karo uunan biri u dhiganin maaragtay waxa ugu horeeya qabta ay noqoto asaga wixii ku taxalluqa nafsadiisa inuu qubaysto oo waagu markuu soo bariyo maaragtay uu ku xisaabtamo nadaafadiisa isqusha galo qubaysto sariirtiisa goglado weelkaad wax ku cunto qof kale ha u dhigin yaa ku qadaamado meesha ku jooga waa cidna weelkaad wax ku cunto aad dhaqdo koobkaad wax ku cabto aad dhaqdo waxay ka mid tahay wehsidiidka bilowga firfircoonida qofka bini'aadanka ah ayay ka mid noqonaysaa taasi ma garata marka wehsiye wiil kulama koriso waxaa la rabaa inaadan noqonin qof caajislow ah oo noloshiisu caajis maaragta ay ku bilaabato kuna dhammaato markaas weligaa ma dhaqaaqaysid mana gaaraysid heerka aad rabto marka waa inaad caajiska naftaada kala dagaalantaa waagu markuu baryo salaadaada dukato qur'aankaaga akhrisato sariirtaada goglato quraacdaada samaysato weelkaad ku samaysato xasho amaad iska dhaqdo maxay ahaday nadaafadda aad ku dadaasho adigu soo qubaysato maxaa samaysay waxaad tuurtay heeryadii caajiska adoo firfircoon markaas haddaad exercise samaynayso guriga gudihiisa ku samee haddaad bannaanka u baxayso kusoo samayso yaa rasiq ya fitax irsaaqadaada doono meeshaad aadi rabta aad waxaa qabsan rabta qabso laakiin haddii noloshaadu caajis ku bilaabato saaka waaga markuu ku intaa isjiijiido aad adoo caajis kasoo kacda sariirta oo sariirta hoos dhex taal ka tagto oo koob yarood shaah kusoo shubatay aad sariirta hoosteeda dhigtood ka tagto oo maxay ahayd adiga dhanba aad tahay qof leezi ah oo cagajiid ah wax ma qabsan kartaa halaas wixii ka dambe noloshaadaba hadday meeshaas ka bilaabatay intaas kadib maxaa qabsan kartaa waa waxbana waa in qofku uu asagu isdhiirigeliyaa shaqsiyan asagu waa inuu first isdhiirigeliyaa intaan qof kale wax u sheegin intaanu qof kale maaragta tala ka qaadanin waa inuu nafsadiisa asagu dhiirigeliyaa uu ku xisaabtamo inuu wax walbaba qabsan karo uu istaago uu isfaradeeyo oo wax walba qabto cidnana uunan waxba ku hadlaynin naftiisana uu baro firfircooni inay kusoo kacdo waagu markuu baryo taas ayuu qofku ku noqon karaa qof aayaha dambana ka shaqayn kara inuu wax qabsado laakiin hadduu marka horeba qof habacsan oo hadduu iskuul aado caajis ku taga oo hadduu kasoo maxay ahayd galaas dhex fadhiyo caajis la fadhiyo iyo hurdo oo hadduu shaqo taga kor hurdooda shaqada oo haddii shir lagu jiro shirki soo indhaa ka mirig dhex fadhiyo wax laga sheekaynayba aan ogeyn oo caajisa ma dhacayso inuu naftiisa iyo noloshiisa wax u qabsado si uu marka qofka naftiisa iyo noloshiisa wax ugu qabsado waa inuu naftiisa caajiska ka ilaaliyo waa inuu asagu isdhiirigeliyo waa inuu firfircooni isgeliyo waa inuu awal marka ugu horeyso indhaha kala furo yaa risaq yaa fataax uu soo weysaysto salaadiisa tukado qur'aankiisa akhristo ducadiisa iyo adkaartiisa samaysto sariirtiisa waa inuu ka bilaabo waa hadduu rabo inuu wax intaas ka weyn qabsado markuu ilmaha yar yahayna waa in lagu abaabiyo haddaan markaas uu yar yahay uu geed yaroo baxaya yahay aan lagu soo abaabinin sariirta korkeeda in cuno loogu keeno uu barto oo koobka oo asagu wax ku cabanto meesha dhigo miiska saaro ama sariirta saaro in laga qaado la baro weligiis canugaasi ma toosaayo wiil ha ahaada gabar ha ahaada waa in waxa noloshiisa ku taxalluqa qof kastaaba inuu qabsan karo uu try karayaa markaas ayuu aayihiisa dambana dhisi karaa mustaqbalna ka fikiri karaa waxna qabsan karaa horeyna u socon karaa ma rabo inaan warka idinku dheereeyo waxa kaliyahoon rabo inaan firfircooni idin geliyo waaye oo aad istaagtaanood naftiina iyo noloshiina naf isgelisaanoo naftiina iyo noloshiina aad u istaagtaan si berri ka maalin aad wax naftaada ugu qabsan karto biidni illaahi kariim aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina qofkii hore noola socday waaba nala socday oo maxay ahayd channelkan ku xirnaa inta nagu cusub ee nagu soo biiri doontana waxaan idin leenahay fadlan haddaad kusoo biirtaan channelkan
uu idin anfaco like-ta noo saara subscribe-ka sameeya gambaleelkana furta si barnaamij walba uu idinkugu soo dhaco waxa kaloon rabaa inaan idin sheego inaan hadda wixii ka dambeeya update noqon doono waxoogoo yar soonkii ramadaankii iyo anoo xoogoo xanuunsanay ramadaankii kadib ayaa maaragtay habacsanaan igu riday hadda wixii ka dambeeya toddobaadkii markay ugu yar tahay 3 barnaamij ama 4 barnaamij waan soo gelin doonaa biidnillaahi kariim nala socda sidaad noola socotaan noola socda waxaan leeyahay kusoo dhawaada mar walba saacabo furan iyo barnaamijyo aan isleeyahay baraarujinta dhalinyarada waxbay u taraysaa horena way u wadaysaa lifekooda iyo noloshooda sidii ay u toosi lahayd ayay ka shaqaynaysaa ayay ka shaqaynayaan aan isleeyahay ayaan mar walba halkaan idinkugu soo gudbin doonaa tan iyo intaan barnaamijkan mid lamid ah asxaabay aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabaadiinada eebbe ha ahaato korkiina nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh